dowladda Soomaaliya ayaa rabta inay ku biirto dowladaha ururka bulshada bariga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo EAC East African Community. ururkan ayaa markii ugu horreysay la sameeyay sanadkii 1976 laakiin 10 sanadood kadib 1977 ayuu burburay. waxaana dib loo sameeyay sanadkii 2000 waxaana ku midaysan dowladaha DR Congo, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda iyo South Sudan. waxayna xaruntiisu tahay caasimadda Arusha ee dalka Tanzania. dhaqaalaha wadanadan waxaa sanadkii lagu qiyaasaa inuu gaaro $300 milyan oo dollar, waxaana ku nool dad gaaraya 460 milyan oo u dhiganta 5.7% tirada guud ee dadka dunida. ururkan ayaa sanadkii 2005 ku heshiiyey in la mideeyo canshuuraha xuduudaha oo ay alaabaha iyo dadka si xur ah u kala gooshi karaan wadamadaasi. si loo xoojiyo dhaqaalaha wadamada iyo horumarkooda, dalladda EAC ayaa sameysay sanduuq gaar ah oo shaqaynaya tan iyo 2010. wadamada ayaa sidoo kale ku haminaya in sanadka 2023 ay samaystaan lacag u gaar ah. midnimada dawladeed ee ay doonayso dalladan ayaa waxaa buddhig u noqon doona in siyaasad midaysan ay wadanadan ka yeeshaan arrimaha ammaanka, gaashaandhigga iyo xiriirka dibadda. ku biirista dalladan ayaa bulshada Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ay uga hadleen, qaarna soo dhaweeyeen halka qaar kalena ay sheegaan in Soomaaliya aysan diyaar u ahayn ku biirista xilligan. haddii Soomaaliya ay ku biirto ururkan, waxa ay shacabka Soomaaliyeed ee viisa la'aan u safri karaan dalalkaasi. wadamadan ayaa leh wax soo saar ka badan midka Soomaaliya, waxaana ay fursad u heli doonaan inay badeecooyinkooda keenaan Soomaaliya, waliba iyaga oo ku keenaya canshuur yar. waxa ay taasi dhibaato ku noqon doontaa beeralayda Soomaaliyeed, maadaama wadanadan ay leeyihiin wax soo saar badan oo dhanka beeraha ah, waxaana u sahlanaan doonta inay wax soo saarka beerahooda ay keenaan Soomaaliya. waxayna suuqa ka saari doontaa beeralayda Soomaaliyeed ee aan haysan kaabayaal dhaqaale oo waaweyn. dalka Soomaaliya ayaa inta badan wax ka soo degsada dibadda, mana ahan dal leh warshado wax soo saar leh, taasoo meesha ka saaraysa in wax soo saarka Soomaaliya la geeyo suuqyada bulshada bariga Afrika faa'iidana hesho. shirkadaha iyo bangiyada dalalkaasi qaarkood ay leeyihiin dalal kale kana miisaaniyad badan kuwa Soomaaliya ayaa iyaguna fursad u heli doona suuqa Soomaaliya inay yimaadaan, waana arrin halis ku ah horumarka shirkadaha iyo bangiyada Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa xusid mudan Soomaaliya dalka Kenya oo kaliya ayay wadanadan kala leedahay xuduud, laakiin wadanada kale ee ku jira ururkan ugu yaraan mid kasta 2 ilaa 3 xuduud ayuu la leeyahay kuwa kale. haddaba Soomaaliya ma u yahay ku biirista ururkan mid u fiican?